السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. horta dee hadalkii waa dhammaysteeno meelaan kaga wax la sii naxnaxyo garan maayo waxay noo ballan saa u hadasheen inaan hawsha u fulino intii la isodhan lahaa ilaa hadal badan waxaa ma taree hadalka haddii guntiisa la helo waan kugu raacsanan baa sidaa aad tidhaahdeen baa inoo guddoonaa dalkaynu horu marino wanaagaynu ka shaqayno duruufaha inagu xeerana waynu ognahay waxaan aad iyo aad ugu farxay hadalkiina aada soo jeedseen dhammaantiin haddaydaan dee ka soo tashaa xalay oo waddo cusub oo runtii qofkii maqlaba farxad gelinaysaa ayay ahayd sidaa hadalkaa mawduuca halkaa ka qaadanaysaa odhagtee muxuu ka koobnaa maskax furan wuxuu ka koobnaa waxaa dhaha wadannimo nationalism niman qadiyad dalka fikiraaya waxaa ku jirtay energy quwad xoog dhalinyarnimo oo qof walba waxaa ka muuqata tamar ay leedahay dhalinyaradu waxa ka muuqaday garaad aqooneed oo korsan intaa markaan adkini ka dhooxay taariikhdu iyaday soo celisa sida aad sheegteen ma jiro horumar ka dhacay adduunka dal kasta iyo wakti kasta iyo casri kasta horumar ka dhacay oo aanay samayn da'diinaasi da'daa dhalinyarada soddonka iyo wixii ka bilaabmay ma jiro wax alliya waxaa isbeddel adduunka ka dhaco o dhan waa da'diina markaa qof kasta maanta wax ku farxay somaliland in raggii iyo hablihii da'da ahaa somaliland ay hayaan tubtii caalamka o dhan hore ugu maray oo dalkii rajo cusub baa gelisay saa u hadlaysa rajo cusub ayaa ka muuqata insha allahu taasaa inoo hirgeli doontaa halkaa arigteen baanad ku raacsana maxaad isku soo sharaxday dowladaha hoose maxay dadku idinku codayeen maxaa idin hor yaalla adduunka oo dhan ka u taajirsan iyo ka u faqiirsan duruufaa loo dhistay dowladaha hoose waa caalamiyan dhakhtaradana waxaa la idhahdaa kuwa thiyaatarka qofka la qalaa inta gasha neelasta ka waxqala ka xaadha waa dad gaaro loo tababaray cid walba iska gasha tiyaatarka dee iyagoo dhakhtarada marka idinka waxa la idin geeyey tiyaatarkii dadka ayaa taalin waa idinka dawlada hasiista dadkiina waxay u baahan tahay wax badan dee horta in laidinla fahmo dhawata la isla fahmo marka waxaad u doorateen hawl baa isu dhigteen u malayn maayo qof idka mid dowladda waad ka lacagaysan doonta waxaan isleeyahay dhammaantiin idinka iyo kuwii doorashada la galee aan soo bixin ee kaydkiina ah oo idinla mid oo idinla mas-uuliyada oo codkii dadka sita wuu dhacay hebel maaha qofkii kula doortay waa kula xil ixtiraam buu kaaga baahaya status buu kaaga baahaya waa qofka kugu dhow ku caawin karaya haddii aad relationkiina aada wanaagsan oo xilka uu sido ila cod buu sidaa waa codkiisa aad ma ku soo baxday aad ku qadariso marka intiinaas waxaa u timaadeen oo da'diinii idinla midka adaan soo doonanin ee dhibtaa iska nacay dheertiin waa dal jacaylnimo waa hawla isu dhigtaan saasaa loo sharxaya hadalkiinina taasaa ka muuqatay hadalkii aad tidhaahdeenna taasaa ka muuqatay laba noo iskalaasaa fadhiya imaka nina waa wasiir nina waa meer waa lasoo doortay dee labada adaa lagu doortay labada adaa lagu soo doortay oo culayska badan ku fuulaya wasiirku wasiir u dhex yimid madaxweynuu la joogaa dowladda buu kaga qayb jiraa isaga cidin may soo dooran dee markaa imika mas-uuliyadda taitalka waa kala laba oo hawl kaa weyn waayo saxiib saxaaga uu ka weeyey laakiin xaqiiqada dhabti dee kii meerka la doortaa ayaa dab ka saaran adaa daawaha u dhow markaan intaa isla soo sifayno haddaynu intaa isla fahmno dowladaha hoose mersa maxay hor yaalaan dhowr 5 qodob baa laga soo qaaday inta ugu culus ee dowladaha hor yaalla caalamiyan kolka hore waa mushkiladda bulshada aad xukumayso maxaa ugu weyn bulshada way tarmaysaa intii aad wasiirka ahayd magaalada waa lagu doortay dad baa kusoo kordhaya habeen walba dhalanaya had iyo jeer inta dhimatay inta dhalatana innaga saddex lowlaabo inta dhalataa ka badanta kuwa dhinta markaa saddexa bilood joogteen bablishkii in badan baa kordhay magaalada timaadeen ilmihii dhashaaba wuxuu kaaga baahan yahay mas-uuliyad biyo nolol caafimaad waa hawl soo kordhay qoyskii hadduu qol deganaa wuxuu baahan yahay qol ka badan inuu helo hadduu aabbihi mishaarada ku yelid hooyadii waxaa loo bahan yahay wax ka badan
mas-uuliyadda koowaad cidda kasoo dhacsana waa adiga markaa bulshadu way koraysaa waa dhibaato ku taala inaad ka fikirto meeyarow bulshadu way iskhilaaftaa mar walba way is haystaa labada jaarki waa bini aadam wax ku abuuran adaa lagaa rabaa khilaafkoodii inaad xaliso bulshadu waa conservative meel ay joogtaba cid kastaba hada sidaa ay yihiin maanta gurigaad joogto baashaa in meeshaa laga qaado halkaa la geeya qof kasta wuxuu maxaa loo qaaday dad tira waa jirjiro aad baan u arkay laga ma oga laakiin dadku waxay jecel yihiin waxa uu yahay inuu ahaado sidaa uu yahay dadku in laga bedelo way ku adagtay ka guur haddaba waxaa laga rabaa inaad caqli cusub keentood wixii ka rabto maxaa ugu yar xashiishaan iska ururino waa lagu maqlaya laakiin waa la kalaashanaya war ninkana qaylo badana ta labaadna waa maxay ee idin haystaa ee inaga inoo gaarka waa nabadgelyada dal ictiraafsay manihin dhaqaaleynu uu yaryahay kabasitigeena security uu yaryahay dee degmadaada booliiskeeda iyo wardoonkeeda iyo amnigeeda oo amnigoo laba a lagaa rabaa mayro mar waxaa laga rabaa dadkan wadageni inay nabadkooda noolaan ood kala ilaaliso ood u kala gar qaado ood kagar daranta u sheegto laba waxaad u baahan tahay inaad ilaaliso cadowga dalka yaa soo gelaya markaase amnigeena inaga muxuu ku xumaanayaa dalalkeena africa ee weliba geeska africa dhibaato aan wada qaybsanaa jirta oo maadaama dowladaha dagaalo badan ay ka socdaan geeska africa oo ummaddu isbedelayso ummaddu waxay ka iimaan daran tahay oonay aaminsanayn stateka waxa laga qaranka oo waxay soo aaminaysaa faamil hoose markaa waxa abuurmaya mith inuu qofkaas qofkaa la celiya mar walba markaa taa amniga gudaha adoo ilaalinaya inaanu cadowga kalena kusoo dhex lumantaa oo meelaha haddii jeer cadow kasoo dhex diso ay tahay ninka balaayada wada idinkaa ladka rabaa inaa ilaalisaa waayo dowladda dhexa idinkaa ugu dhow ila idinkaa hogaaminaya tusaale wacan wax alla ascaanood dadkii meeshaa joogay een la dhibin meerkaa dee ka xoogaa leh waa iska horeysteen deetana waa la socotaan dhowr isteetan qof baa lagu dilay oo qof qarmeedkiia kaba badan ee dowladdiia mar alli marka la yidhaha maxaa dhacayna way ka murugtaa dadkii ilaa siba wax loo raadiyaa bal meeshana la hubiyo hubinta waxaa noqotay in halkan wax qeyr caadiyana yaallaan deetana ay baahan tahay meeshan inay sida baacmishir kala noqoto dee waana ku adkaatay markii la baacmishir kaloo noqon la sinada dadka kale deegaankaa loo raaca wixii yimaada meerku ha xukumo odayaashu ha xukumeen haddii la mid noqday gacan kalaa ku jirta marka nabadgelyadiina saasi dushina kusoo fuulaysa bulshadii iyo nabadgelyadii waa labada ugu muhiimsan waxaa kaloo idin haystaa inaad horumar keenta baa la ka doonaya meer kastoo la doortay waxaa la leeyahay maanta dadkeen wuxuu cajaa'ib ku yahay kaa sugi maayo haddaad tiraa war soomaali geelaa yaad ugu jeceshahay oo 13 milood baad tugtaa ee bal waxiga cagta idhig aan wax kuu sameeyey haddaad galbeedka qoladaan geli lahayn tiraadana beer aanad garana wax ka soo baxaya ood ku tacabtay oo maalin walba ku soo daashay oonad garee roob idin kaliya inaad ka sugtaa wax ka soo baxaya bal in yarkaadii horta dee aan wax kuu qorsheyn wax kula doonaya kaa sugi maayo ina lisaana kaana cajuula dadku waa deg deg kii walina wa kasii degdegsayn idinka sugi maayaan muxuu koriyey shalay dhaantaa la yidhi kii hore muxuu taray waa iska caadi marka waxaa laga rabaa horumar deg dega qodobadaas ayaa laga rabaa inaad xalisaan qof kasta oo xil hayana ama madaxweyne ha ahaado ama wasiirka ha ahaado ama agaasimo ha ahaado xilkuma kale qof walbana intaan laegba hortaada oo kasi markaad adigu iminka magaalo hayso adna magaalada hayso wasiirka daakhiliga intaasu magaalada isku timaada oo ka doonaysa intaa ay kaa doonaysa in leg wasiirka horumarinta waddooyinkana intaan leg bay ka doonaysaa ka caafimaadkana intaan leg bay ka doonaysaa maanta wasiirka uga howl badan somaliland ee hawsha ugu baar saaran tahay kii caafimaadkii ka tacliintii waa laga howl badanyay ka biyaha laga rabaa inuu meel walba waraabiyo biyan lama hayo ka biyaha ayaa laga rabaa inay tuulo waliba biyo hesho ilaahna waaba inoo gargaaro imika iyadoo karantiyo deerti waabna sii badan yahay laakiin isaga mar walba waran baa ku taagan 6 goolo biyo keena waxaa lamida ka waddooyinka waxaa laga hadlaa wado marka 6daasaa inuu dul yaalla oo la rabaa inaad xaliso aynu xalino xil kastaan hayno magac kasta inoo bixi way si kala kordhayaanu maalintaad xil qaaday
xuquuqdaadii waad weyday meeyarow xuquuq badanoo dee had waayeysa hadalkaagu waa xadiday dhaqankaagu waa xadiday ciddaad dhexeynaysaa waa xadiday goobtaad tegaysaa waa xadidan tahay waxaad qabanaysaa waa xadidantah waayo adaa dadkay soo hortaagay markaa bulshada hadday islaam tahay waxay ku dhaqmaysa waad ku dhaqantaa hadday soomaali tahay dhaqanka ay leedahay gobonimo taqaano waanad ku dhaqantaa haddii intaa laga wado tacab badan tacabka baraka male waayo aaminaadii baa qaldan mujtamaceena dee uu iska wada khilaafsan iska wada hor imanaya marka waxay kusoo ururtay adoo dadaalna waa laga yaabaa inay dadku marhaysan waaya waxaa wado dadka laftiisa psychologically aan mararka qaarkood dee wuxuuna u akriyaa waa lagu yiri bukoreyn intuu wuxuu doonaa sameeyo intuu balaa turmuro waa la lahaa dee war waa la lahaa maahe bal ninkan laftiisa u ciqaabay xilka haye meeyarka miyaa hayaay kii hore dhaamay adeer muxuu sameeyey waxa miyuu adiga kula soo jeedo mee dee waa sii la yidhi rag looga qaateenaya bal hubso isna dulmaya laga yaabaa aaminaad baa ka noqotay sidee aaminaadii loo helaya ba haddana timid aaminaaddii markii la waday waxaa la sugaya 4 qodob haddii aad si fiican u xalisho waad ka dabaan karaysaa aaminaadda 4taasi waxay waxaanad xukutoo dhamis 4 unbay isugu yimaadaa dadka aad xukumaysa waana taqaana dareenkooda waanad ogaataa say u dhaqmaan waanad ogaataa waxay ka dadaanaya waxay ogolaya waanad garataa waxa ka dhexeeya waanad garataa waa bad dhan haddii aad dadkii fahamtay markaa waa lagu joogaa waanad qorshe u haysaa aliqi karaya xaasibu naasi calaa cuquulihim waar dadka caqligooda kula dhaqma haddii qofki waxaan u garanayn ba adee waan kuusoo wadaa oo isaga aanay caqligiisa ma gelayn dee si qabo wax ugu sheeg 3 qorshe muxuu u baahan yahay fuli waa ta ugaada ka daba wixii o dhan ka kaale fuli magaalada baad qorshaysa waxaad tihi halkaa waxaanu ka dhisanaa maanta magaalada market bay u baahantay halkan hore way xun tahay meel cusub baan jeexaya waan qorshaynaya halkaasaynu xoolaha ku qaadaynaa oo ku jirta wasakha saasaanu iska dhigaynaa biyahana saasaynu u keenin wixii ood ku daashood 3 bilood wadeenood sheekh iyo shariis ku keen markaad keento kii halkaa qulunka aad deganaado xeeyada waxbaraya ee kharibaad aad ka guur xabad baa lagaala hormaray dagaal baa lagaala hormaray markaa furintii baa waxay noqonaysaa wax adag colkiina doortay ceebta aladii maa idin sheegay haddaba aanu wasiiradu lahayn dad kala doortaa ceebta ku dhacdaan kuu sheegaya bini aadmigoo dham dareen buu leeyahy la taabto oo laga adagay markaa tira waan fulinayaa intii ku dooratay kugu socotay beriga aad tirahdo raggii kula hawlgalaa ku imanaya kuli may annaga baad naga bilowday intii aad qadarinaysa kusoo doortay waa dadka waa dee alladi maa bacdo ayaa kaaga hor imanaya markaa waxay kugu markaa wixii aad qabanaysay iyo wixi aad ku daashay iyo saad arkaysay iyo dadkii halkaasay taala hadda horganimadu waxaan idinku ducaynayaa in ilaahay xilkaa qaadeen idin nabiyareeyo waxaa kaloo idinka doonayaa inaad qarannimada aad tidhahdeen wado inaad waddaan golaha deegaanku wuxuu fadhiisan karaa marka uu ogolaado badho saabka maxaa loogu xidhay codka golahaas maxaa ka horeeya oo sharcigu idinku hiiliyey dowladaha hoose waxay curin karaan xeer iyo sharciyo ay leeyihiin oo ah baylo yay bayla u yihiin ka dowladda dhexe ka uu baarlamaanku baaskareeyey kon kaa hor yimaado kaagu waa non avoid baarlamaankana markuu ka hor yimaado dastuurku waa non avoid marka xeerkaagu ile magaalada xukuntaa qura adigu iyo hargeysada xukuntahay dalka ma xukuntide xeerkaagu adigu kuu gaariyay hadduu kii dowladda dhexe ka hor yimaado wasaaradda ka hor timaado waad joogsanaysa maxaa loo siiyey wasaaradda awoodda waxaa loo siiyey in ay jeegarayso qaladaadka ka yimaada dowladda hoose markaa dee waa run oo 3 du jooga oo malo ku qeylaya taayaanad aad intaad tallaabadii u qaadatay aad ogaanaysaa ha dhigine xeer baad leedahay oo sharciga baa ku talahay raac war maxaa lay haysta waa lagu kala baxaya maanu qalad u fahamtaa markaasaa la bilaabaya oday u sheeg kan qabta in kala hadlo waxba la hadli maayo warinku sharciga halku ka maraya 3 bilood koo joogin baa wada bilowdeen dhowr meelood hala bedelo maadaa meeshii ba galay maxaad bedeli madaa waxba xisaabiyey
goor baad dib u ordaysaa haddii la bedelayo soo in laga fikra maaha ninka dembigaasuu galay kaasuu galay ka raggan kale yimid soo in la qiyaasa maaha ninka soo baxaya muxuu qorshe hayaa isaga akhlaaqiisu maxay tahay yaa imanaya dee baashu maaha baaskelkeena shoogga ii dhiibe ya qaran baa la maamulayaaye beerada waxaan leeyahay raggal doorto waxaasoo dhan idinku akrinaya oo wax wada jire haddee wax adagta iyaan loo baqanin waa lagu bedelaya lagu caay dad wax soo doorta cayda ogolow faalada ogolow waxaana lahayn ogolow laakiin dadki waana socota laakiin ha u ogolaan dee inay danti ka adkaatay inta xumay intaa ayaa hadal badni aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullah